Cabdirasaaq Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Puntland oo la hadlayay telefishinka Kalsan ayaa ka warramay shirar uu Nairobi kula yeeshay hay'adaha bahwadaagta yihiin wasaaradda deegaanka. waxaana shirka intuu socday uu sheegay in lagu falanqeeyay arrimaha deegaanka iyo sida wasaaradda deegaanka looga caawin lahaa barnaamijyo wacyigelinta deegaanka la xiriira. marka hore waxaan mahadcelinayaa telefishin Kalsan maamulkiisa iyo shaqaalihiisa oo had iyo jeer aan isku taxallujiya arrimaha deegaanka iyo wixii ku saabsan. waxaa jirtay inaan safar gaaban aan u aadnay magaalada Nairobi. safarkaas wuxuu la xiriiray hawlihii deegaanka oo meeshooda ka sii wadno. waxaase ugu muhiimsanaa in hay'adaha ka shaqeeya ama nala shaqeeya oo aanan muddo kulmin inaanu saragno halkaas aan waxaan ku yeelanay shir 3 maalmood ah. 2 maalmood hore dhammaan hay'adaha nala shaqeeya dhan ayaa yimid iyo darbixiyaasha. waxaana laga wada hadlayay sidii xiriir loo wada yeelan lahaa, sidii shaqooyinka la isaga kaashan lahaa, sidii qorshaha wasaaradda maaragtay loo tixgelin lahaa iyo arrimo la mid ah. sidoo kale waxaa laga soo jeediyay halkaa qorshaha 5 sano soo socota ee wasaaradda oo hadda la dhammaystirayo oo gabagaba jooga in golo walba ra'yigeeda ay ka dhiibato ama strategic plan baa Soomaalida hadda u bixisay ay yiraahdaan. qorshaha 5 sano ah ayaa aad looga wada hadlay iyo sidii uu noqon lahaa guddiga shaqada wasaaradda ee mustaqbalka. sidoo kale waxaanu shir la yeelanay darbixiyaal uu ka mid yahay midowga Yurub aan iyagana kala hadalnay sidii mashaariicda maamulka Puntland ama dowladda Puntland loo soo xoojin lahaa. mashruucii hore u socday oo ahaa mashruucii deegaanka waa noloshaada horumarkiisa iyo wixii maaragtay u baahan laga soo xirno waanu ka hadalnay waanu dhammaystirnay. marka waxaan kaloo aad uga hadalnay oo runtii 3 maalmood iyadoo muhiim ahayd waxa wacyigelinta iyo waxbarista dadka arrimaha deegaanka ku saabsan. waxaan dhawaan iyadana bilaabaynaa agaasimaha guud ee deegaanka ayaa tilmaamay in dhawaan bilaabayaan dhiraan ay ku sameynayaan magaalooyinka Puntland si loo helo deegaan qurux badan. waxaana carabka ku dhuftay in wasaaradda deegaanku hadda wado mashaariic kala duwan oo deegaanka lagu ilaalinayo. dhiraynta sababaha aan Nairobi ka mid ahayn sidii loo dhirayn lahaa xafiisyada dowladda. waxaa moodaa xafiisyadanu waa iska daawan yihiin meelaha public ah ama dowladdu leedahay ama isbitaaladan ama masaajidadan ama iskuuladan had iyo jeer waxaa moodaa meelo iska maran. marka sidii loo dhirayn lahaa sanadka soo socota haddii la idmo wasaaraddu ay hormuud ka noqoto laakiin wasaaradaha iyo hay'adaha iyo institutionska meelahaas ku yaalaan iyaga ayaa loo baahan iyaguna xiriska saaran. laakiin wasaaraddu mashruuc gooni ah iyo hawl gaar ah ayay sanadka soo socota ka qabanaysaa dhiraynta meelaha bulshadu leedahay ee dowladdu leedahay. wasaaradda deegaanka, dalxiiska iyo duurjoogta dowladda Puntland ayaa wada mashaariic ballaaran oo loogu talagalay ilaalinta deegaanka. waxaana hadda socda wacyigelino lagu fahansinayo bulshada dhibaatada deegaanka loo geysto iyo bulshadu kaalinta looga baahan yahay inay ka qaataan si loo helo deegaan qurxoon. Cabdixamiid Salaabare, Kalsan TV, Garowe.